cabdirashiid xasan mataan xogay hore warfaafinta u qaabilsanaa xisbiga mucaaradka wadani korintaanu dhowaan iska casilin xilka iyo xubinimadii xisbigaasi oo waraysi gaara gudaha Hargeysa ku siiyay TV-ga Somali Cable ayaa xilligan daboolka ka qaaday inuu ku biiriyay xisbi xaakimka talada hay kulmiye Faysal wad ma santahay horta kulleeyay inta siyaasadda raadka kulleeyay way qiyaasisay si wax u dhacayeen markaan soo tagay anigu inaan aan dhex ahayn oo aan kulleey la tashi badan sameyn doono dad kale dhinac u jahayn doono way ku jirtay hadalkaygiina marka horta waxaan ku cadeynayaa inaan xisbiga kulmiye tagay hadii la yiraahdo waan halka ku biir doono maxaad ku xulatay xisbiga marka taayada waxaan faahfaahinteeda bixin doonaa hadii la yiraahdo marka ixtifaalkeeda aan gaadhno cabdirashiid xasan mataan oo hankiisa musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen hore uga soo raadiyay xisbigii udub ayaa isagii sidoo kale garab u hogaaminayay Jamaal Cali Xuseen waxay horaantii sanadii 2011 ku biireen xisbiga cadaaladda ee dareelka ucid kadib markii xisbigaasi ay ka soo go'een waxaana sanada uu ka hor iska casilay xilkii musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi isagoo ku biiray xisbiga mucaaradka wadani ogayaha warfaafinta uu ka soo noqday Kasako waxa uu dhawaan shaaciyay inuu ka baxay xisbigaasi isagoo xilligan xisbigii afraad oo ah xisbiga talada hay kulmiye ku biiraya waxaana TV-ga Somali Cable uu weydiiyay sababaha kalifay in afar xisbi uu isaga dab qaado sanado kooban oo saaxadda siyaasadda ku jiray dad badan waxay isweydiinayaan cabdirashiid muddo kooban oo siyaasadda ku jiray waa xisbigii afraad ee hadda uu ku biiro talo maxaa sababa ma xisbiyada khaldan mise dhankaaga ayaad ku saxsantahay aad arinta wax sahlan ma aha marka dan u madad raadinayso marka xisbiyada Soomaaliland de wax badan bay naga dhiman dimuqraadiyadeeni wax faahfaahin badan bayna u baahan tahay hadii la yiraahdo qudheeda markeedan faahfaahinaya laakiin wax dambi oo ku jira xisbiyada in loo kala gudbaa ma jirto nin dan uma raadinayana meesha ay u danta ka arko ayuun ku dambeynaya xisbigan in badan baad dhaliili jirtay marka maxay iska bedelay markaad u joogtay iyo markaad joogtay wadaniba dhaliishii xisbigaasi waxa weeye wax la wadaagayna way jirto waan sheegi jiray waxana qofka qura ee sheegayay in shirgudoonka baarlamaanka iyo madaxtooyadu ay saaxiibo ku ahaayeen hanaankii loo maamulay dalka ee aanu markaa dhaliilsanayn 7 sano wax kasta oo ka soo kordhay oo dhaliil ah oo kulmiye loo hayna waxa xaqiiqo ah in wadani bari dhinaciisa lahaa iyadoo qudheeda faahfaahin dheeraad ah markeedan bixin doona hadii la yiraahdo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa